nolol wada street ma jirto dii shaqaynta maalinta koowaad lagu keenay iyadan training lagu siin lagu yiraahdo wax waliba ha saxmaa ma suurtagal ah waxbaad qaldaysaa maanta waxbaad soo idaarinaysaa baraa lagu sheegay alwada kaasi qalad buu hayay ka daayo saatan ilaa ya training si fiican ula qabsato ilmuhu sida adiga maskaxdaada ku jirta bil iyo 2 cashiyo 10 casho kuma noqonayo waa inaad dulqaad yeelan kartaa aqbali kartaa gafafakan waa inaanu yeelan karnaa al-iqnaac inaynu ilmaha negotiation la samayn karno qancin karno wax ka dhaadhicin karno bini'aadamka qasab wax lagu ma baro wax lagu baraa inaad adiga iyo ilmuhu laakiin hadduu kaaba baqayo dee ilmuhu kuu furfuraan maayo dii marka horeba unaday bursito markaad soo gasho sida jiirka ay meel isku wada nabnabaan hadhow markaad u yeedha tiraa kaalaya maxaa aragteen dee waxba sheegi maayo haddii dunida soo gubatay adiga lagu sheegi maayo laakiin haddaad marka hore qof opina tahay oo si friendly ilmaha ula hadlaya oo wax u sharxaya oo warkiisa dhagaysanaya oo meeshu ka qaldaya ka toosinaya oo negotiation u dhex marayo sida quraanku uu ku tilmaamayo anbiyadii carruurtoodu sida wada dhaqmaysay yaa bunayya inni ara fil manami anni adbahuk hadbu nabi ibraahim uu kala hadlaya ilmihiis isagoo raba inuu gowraco adiga hadii ilaahay ku yiraahdo ilmahaaga gowrac maxad yeelahay marka hore waa adagta dadka inta badan ma yeesheen haddaabad say yeesho waxaad soo dhan lahayd weerar buu ku diidaa ama baxsada isagoo meelaha maraya intaad gaaddaa unba demidi dhigta dhiga u dari lahayd soo maaha deetana aad oran lahayd ilaahay waaniga yeelay sidaas fartay nabi ibraahim gowrac baa la yiri dabeetana uu u yimo wuxuu rabaa ilmihiisa inuu ku qanciyo inuu aqbalo in la gowraco aabba waxaan arkay buu leeyahay anigoo ku gowracaya waana riyo waxyi ilaahay waxyoodaya ilmahan qaabkii loo soo tareengreeyay xad buu gaadhay uu aqbali karo inuu aqbalo gowraca waalidkii dabeetana uu yidhaahdo yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allah من الصابرين أبا وحي إلهي كفري يال بحدي هلي دونتا أنيقو كمدا إيبان وح أدق إنقو ربنا إنو كرنا دعنو كلا هذا الله وإن إنو أقبل نيغوشيشن إنو نودحيا إن وركو دحدي إنو فري لقمان الحكيم قرآنكم حقك ورميا نيغوشيشن الميسيو وارين يو الله هضلا يو وحشيق يو أنسكا سوكوبا مركا قدام بيان أوران كرا وحويان وإن إنو فهمنا عقلية عرورت child psychology وإن إنو سكوت دينا عقلية إلمها إن إنو فهمي كرنا ilmuhu da' kasta waxbuu u baahan yahay waxbuu ihtimaamka badan siiyaa sibuu wax u arkaa waxbuu qaadi karaa fahmi karaa da' kale markuu ka gudbo stage labaad buu galayaa ka gadisan stagekii idan waynaynan ka gujirka iyo 2 jirka iyo ka 15 jirka iyo 18 jirka iyo ka 6 jirka isku si ula dhaqmay waynaynu garan karnaa baahiyaha kala nooca ay qabaan ay u baahan yihiin waynaynu garan karnaa afkaarta kala nooca ay nu siin karayno waynaynu garan karnaa ihtimaamaadka طفل وعقليته حتى وين نقرن كرنا فروق فردية وده حيسا إلما إسكو هذا سماها إلما هذا مركز مدو الله نقطه intelligence كود إسكو مد ماها دلقات كود إسكو مد ماها سين الله شوارك يا إسكو مد ماها فروق فردية بتشرته سيدا وقاعد حنو كتشي داون مسائل كان سيسفي عن لو فهمه وحن ليه والد كوحو باهي سجلفتي سيون وأقبله كورسين نقاط ولبا إنه مركز نشوجني ودنا ديني carruurta ayeeyooyin iyo adeerro iyo hooyo iyo waxbaa kula hayo dad ka waaweyn oo adigu soo garaadagooyay oo tajaarib soo helay calal qaliyay mid qoraalaba helina tajaarib nololeed bay heleen cilmigu deemaha un ka buugga iyo sabuurada la isugu dhigo waa wasiilo kamid ah wasaa'ilka cilmiga loo gudbiyo in buug iyo sabuurad lagu qoro laakiin waxa kale oo kamid ah wasaa'il aan tariiqi tajriba inuu qofku ku barto la train gareeyo dadka waayeelka waaweyni aqoon bay ku soo heleen tajriba saadaradeed markaynu wadankii joognay dee waayeelkaasi wax badan buu ku taray maanta waxa laga yaabaa adiga iyo islaantaadu aan wax badan isdheerayn ina meel cidla wada degantiin toban ciyaalana meel ku haysataan idan idinka laftiina u baahan markaa inaad isku daydaan inaad koorsooyin calal aqal child psychology iyo child education iyo child waxaasiya inaad qaadataan soo shaqadaba koorso uma qaadataan shaqo kastoo aad raadinayso waxaad tidhahdaa waxaan baan rabaa inaan qabto koors yaroo traininga baan qaadanaya dee kuwanina waa ubadkaagii si aad u soo saaraysay qaado wakhtiguu iska dhayaan halkaa ku joojiya wallahu aclam billahi tawfiiq